warar aynu haatan ka helayno deegaanka tukarraqe gobolka Sool ayaa sheegaya in madaafiic xooggan iyo dhawaqa hubka waaweyn laga maqlayo deegaankaasi kadib markii subaxnimadii hore ee saaka deegaan aan sidaa uga fogeyn ay gaareen ciidamo ka socda Puntland. hubka culus iyo madaafiicda goobta ayaa argagax ku beeray dadka ku dhaqan deegaanka tukarraqe gobolka Sool oo iyagu goorsii horeysay mar qura maqlay madaafiicda isu idaarsanayaan ciidamada Puntland iyo Somaliland. waxaana dadka qaarkood ay sheegayaan in inta badan madaafiicdani ay ku cusub tahay dhawaq ahaan dhagahooda. qaar ka mid ah dadka deegaanka oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in rasaastan iyo madaafiicdan ay bilaabatay goorsii horeysay kadib markii ciidamada Puntland ay ka soo guureen fariisimahoodii hore isla markaana ay dowlatus military ku sameeyeen deegaana ay ku sugnaayeen ciidamada maamulka Somaliland oo sidaan uga fogeyn deegaanka tukarraqtaasi oo sababtay in dhinacyada Puntland iyo Somaliland ay maanta isu idaarsadaan hub culus. xiisadahan u dhaxaysa Puntland iyo Somaliland ayaa si xoogaysanaysa marba marka ka sii dambeysay waxaana dhinac walba soo gaadhaya gaadiid dagaal iyo weliba saanad hor leh kuwaasi oo ciidamada badan inta badan ay soo gaarayeen goobaha ay ku kala sugan yihiin. deegaanka tukarraq ayaa xudun u ahaa dhaqaalaha soo gala Puntland waxaana deegaankaasi ku yaala kastan ay toddobaadkiiba dakhli ahaan ka soo xaroon jireen ilaa iyo 120,000 oo doolarka Mareykanka marka laga tago 100 milyan oo shilin Soomaali ah oo qayb ka ahaan jiray canshuuraha wasaaradda maaliyadda Puntland ay ka qaadi jirtay gaadiidka isaga kala safra deegaanada Puntland iyo Somaliland iyo qaybo ka mid ah koonfurta Soomaaliya. waxaase haatan dagaalka tukarraq u muuqda mid Puntland u saamaxaya soo celinta magaalada Laascaanood iyo deegaanka tukarraq inkastoo sidaasi aan loo ogeyn, balse arrintan ayaa ku soo aadaysa xilli magaalada Laascaanood maalintii shalay ahayd uu gaaray cali khaliif galleer oo iyo ciidamadu hogaaminayo iyagu ka soo ambaxay deegaanka ka tirsan Somaliland.